ololaha nadaafadda magaalada Burco oo maanta laga bilaabay 8 meelood oo kamid ah magaalada Burco ayaa waxa maanta si weyn uga qayb qaatay shirkadda Dhaweeye oo kamid ah shirkadaha casriga ah ee adeega tagaasida. Gudoomiyaha shirkadda Dhaweeye ee gobolka Togdheer Xamse Yaasiin Caamir ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ee ay saaka ka bilaabeen goobaha qashin qubka ee ku yaala magaalada Burco, isagoona ugu baaqay dadweynaha magaalada Burco in lagu taageero mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ololaha nadiifinta magaalada. Sidaad arkaysaanba waxaanu ka qayb qaadanaynaa ololihii ay dawladda hoose ku baaqday saaka loo ballansanaa. muhiimadda ugu weyn ee aanu doonayno waxa ay inaan bilicda iyo quruxda magaalada ka qayb qaadano. Dhaweeye ahaan waxaanu magaalada ku soo kordhinay waxyaabo fara badan sida shaqo abuur oo kale, qaybta ammaanka aan wax badan ka qayb qaadanay oo kale, iyo waliba nadaafadda aanu saaka u taaganahay. shirkadda Dhaweeye waxay mar walba u taagan tahay muwaadinimada, dhiirigelinta, shaqo abuurista iyo waliba iska wax u qabsada ay mar walba caan ku tahay inay ka qayb qaadato. waxaanu bilownay saaka shaqadan 5tii subaxnimo ilaa ay imikana waa ku guda jiraa. cid naga soo horeysay saaka may jirin. waxaanu ka soo nadiifinay qaybo fara badan. iminkana waa naga intii ugu dambeysay insha Allah wadna mar walbana waxaanu diyaar u nahay inaanu ajiibno awaamirta iyo ay dawladdu soo jeediso ee ah nala qabta wixii aanu qaban kari weyno ama aanu u baahanahay in iska wax loo qabto wax looga qayb qaato. dib iyo horena diyaar baan ugu nahay. insha Allah ma noqon doonto maalintii ugu horeysay. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay xildhibaan Mustafa Calas oo kamid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Burco, isagoona u mahadnaqay Telesom Group oo ay kamid tahay shirkadda Dhaweeye. dadka mahadnaqa leh iyo shirkadaha waaweyn ee degmadani Burco anaga hawlgala waxa kamid ah Telesom Group oo isugu jirta Dhaweeye Group, Dar es Salaam Bank, Samgas. runtii shirkadaas iyo shirkado badan oo degmada Burco shirkadaha ka hawlgala ahina way naga hawlgaleen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa cid kasto kaalinta ugu yar ku lahayd iska dhaafto ugu weyn ku lahayd be. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.